haasabuhu waxa uu gogol xaar u yahay bilowga xiriir ujeedadiisu tahay guur ha yeeshee waxaa jira waxyaabo kala duwan oo isku xushaan dhalinta inta lagu guda jiro geediga waxay isdhaafsadaan barbaarta hadallo ay ku dheehan tahay kalgacayl ruux kastana waxa uu soo bandhigaa wanaagiisa taasoo keenta isu soo dhawaansho una fududeysa labada ruux ayaha noloshooda inay xaqiijiyaan oo ay dadabgalaan balse dhalinta maanta ayaa lagu dhaliilaa hab xulashadooda dabcan xulashada horta waa qof walbaba iyo aragtidiisa laakiin siyaabo badan bay ku kala duwan yihiin Soomaalidii hore yani qofka waa la tilmaansan jiray waxayna tiraahdaa haweenka iyo geelaba waa liida raaca gabadha la guursanayo siyaabo badan baa xoog loo saari jiray waxa loo saari jiray sida xadiiskii rasuulka kaleey salaatu wasalaam in afar baa lagu dooran jiray oo ahayd inay quruxdeeda lagu doorto diinteeda nasabka iyo reerka ay ka dhalatay iyo inay maal leedahay xulashada waxa kale oo kamid ahaa nin suugaanyahan baa yiri shan hal ahaato itaalnimeed aqbal naageed arrinkeen waayeel af muslim anshax culummo waa siyaabaha gabadha lagu dooran jiray ee kamid ahaan jirtay sababtoo ah xulashada haddana aad buu yani dadka way wada degi jireen gabadha in reerkooda ay qof wanaagsan dad wanaagsan ay ka soo jeedo waa Qurac Cabdinaasir Yuusuf Macallin oo ka faallooda arrimaha qoyska hab xulashada dhalinta maanta ayuu qabaa aragti ahaan inaysan waafaqsanayn qaarkood dhaqan ahaan laakiin bariyahan xulashada la sameeynaya ma waafaqsana dhaqankii horena ma waafaqsano mid wanaagsanna hadda ma waafaqsano waxa dhici karta gabadha inay ninkan sababtoo ma taqaano waxa laga yaabaa in Facebook iyo social media baraha bulshada inay iska barteen inuu sawirro kale u soo dhigo inuu qofkii uu kalimaad aad u cajiibsan oo gabadha xitaa ayadoo dhanba bedeli kara inuu adeegsado marka waxa dhici karta xitaa inuusan guurkii reerka laga soo dooninayo inuusan sameynin oo uu khudbasire iyo dhibaatooyin kale uu ku sameeyo meel cidlan ugu tago marka xulashada waxa fiican gabadha oo kale inay aad ugu fikirto sababtoo waa mustaqbalkeeda ku xiran qofka mustaqbalka markii ku xirantana waxa la rabaa inay aad ugu taxadirto Qoraa Farxiye Muxudiin ayaa ku tilmaamtay dhalinta hab xulashadooda inay la gaar tahay xilligan dana gaar ah oo aan ku dhisnayn ujeeddo cad in badanna dhalinteenu waxay inta badan xoog saaraan hab muuqaaleedka qofka dumarka kale waxa lagu xantaa inta badan inay ragga ka eegaan dhaqaalaha oo ka eegaan wiilkan heer intee leeg buu dhaqaale leeyahay raggana runtii kama marna iyagana inta badan waxa ugu wacan waxay tahay ku marka hore dooqa iyo doorashada qaldaneed labo wixii la isu sheegay oo aan xaqiiqo ku saleysnayn gabadhu haday horta inta badan marka la haasaawo ay labada qof ay dabcan haasaawo wadaag yihiin ilaa xad waxa adag in runta la isu sheego saale wiilku ma sheegay iimihiisa gabadhuna ma sheegtay iimiheeda dabcan guriga markii la tagan oo la isbaranayo qofka kale waxa soo baxayo xumaantiisa soo baxayso inaad si qoto dheer u baarto ruuxa aad nolosha la wadaagayso waa mid muhiim u ah mustaqbalkaaga berito sidaas waxaa ku talinaysa maamo Maryam Taqal horta shaqsiga soo ka dhigta waa example gabadhaad aragtay gabadha waa is aragtay marka dabeeciyada fiirsi waxay kula noqotay inay is anfici kartaan gabadha lama guursadaa tirada Soomaalida reerkooda la guursadaa gabadhan yaa ka dambeeya gabadhan hooyadeed seetaa dhaqankeeda gabadhan aabaheed dhaqankiisa suuya gabadhan walaalkeed dhaqankiisa suuya awal gabar guri iska joogto on la arkin waxa la dhigi alle hebel gabadh u dhalay heblaaye gabadh ay dhashay magaca waalidkeeda lagu guursan jiray waxa la rabaa dhaqan aan lahayn dhaqankeena in loo noqdo waa loo sahmiyaa Soomaalida maxay tiraahdaa wiilkaaga hooyadiis waa loo sahmtaga maxaa loo leeyahay marka aad gabar family fiican oo akhlaaq leh guursatid waxay ku dhalaysaa awlaad akhlaaq leh laakiin marka dariiqa inta ku kulantiin oo wax ka dambeeya aadan ogeyn iyadana wax ka dambeeya aysan ku ogeyn waxa dhacay dhibaato iyo iska hor imaad karun sheegista waxa aad tahay iyo dhab ahaanshaha xiriirka guur ee aad la leedahay ruux waxay sahlaysaa in nolosha aad ku wada qaybsataan wanaag iyo sabar ha yeeshee tacagsigeeda waxay dhalinaysaa kala irdhoobid degdeg ah